qisadani waa mid ka mid a qisooyinkii ugu cabsida badnaa ee ka dhaca dalka Maraykanka sanadii 2021 saaxiibayaal gobol lagu magacaabo Maryland magaaladiisa Baltimore qisadan gebi ahaanba waxa ay gilgishay dalka Maraykanka haddii aan iraahdo saaxiibayaal soo kale xitaa askartii baadhisi ee dhacdadan soo qabatay gebi ahaantooda saaxiibayaal habeenkaasi cabsi ay dareemayaan naxdin ay dareemayaan saaxiibayaal iyo heer ataa ku soo boodi gaadhay gebi ahaanba saaxiibayaal waxay ku dhawaadeen in ay falkan faraha kala baxaan hadaba saaxiibayaal qisadan waxay ka dhacday mid ka mid ah gobolada dalka Maraykanka waxaana noqotay saaxiibayaal qisooyinkii ugu cabsida badnaa abide ee soo mara magaalada Baltimore ee gobolka Maryland hadaba saaxiibayaal dad jeceshahay qisooyinka criminalka iyo dilalka iyo waxyaabahaasi nala joog oo saaxiib subscribe kanalkan soo dhee si aan qisadan gudaha ugu sii galno kuna soo dhow saaxiib Abdiraxmaan YouTube subscribe kigana saaxiibayaal soo samee sanadii 2021 saaxiib July bishaasi 12 habeenimo habeen kamid ah habeenada caadiga ah ciidamada magaalada Baltimore saaxiibayaal waxay kantarooliyeen gaariyaasha xawaarahoodu aadka u socdo sida caadiga ah ee ka dhacda wadan kasta oo shuruuci waxa way qawaaniin caalamiye leh hadaba saaxiibayaal ciidanka booliska habeenkaasi si lama filaan waxay u arkeen gaari madow oo meel aad u maraya waliba xawaarihii wadadaasi loogu talagalay saaxiibayaal xawaare ka badan ku socda kabacdi markii ciidanka boolisku habeenkaasi gaarigaasi joojiyeen saaxiibayaal waxay gaarigaasi saarnaa laba gabdhood oo lagu kala magacaabo sawirradooda inaga muuqata Nicola iyo Bibi labada hablood saaxiibayaal waa black Americanka magaaladan ku nool waliba saaxiibayaal gaarigaasi speedka loogu talagalay meeshaasi oo ahayd 35 speed 100% ka badan ayuu ku socday kabacdi ciidanku waxay ku amreen saaxiibayaal inay soo degto gabadha gaarigooda oo Nicola ahayd ugu dambeyn waxay soo degtay saaxiib Nicola iyo Bibi si ciidanku ay su'aalo dheeraad u weydiiyaan daqiiqada kabacdi intay su'aaluhu socdeen mid kamid ah ciidanka boolisku waxa uu dareemayay in gabadhani su'aalo badan iyo jawaabo badan oo islahayn ay bixinayso cabsi aad badan oo ka muuqato soo kale stress badan hay saaxiibayaal ay aadna isugu dhex buuqsan tahay hadaba ciidanku saaxiibayaal habeenkaasi waxay ku amreen in ay drive license keento oo ahaa mid kamid ah qawaaniinta ugu muhiimsan in qofku gaari wada ah kabacdi saaxiibayaal waxay gabadha Nicola u sheegtay gebi ahaanba wax drive license inaan xilligaasi wadan soo kale waxay weydiiyeen insurance certificate-ka gaarigu lahaa kabacdi markay xaqiijiyeen xarumahooda mid kamid ah waxa loo sheegay gaarigaasi gebi ahaanba inaan register ka ahayn xaruntooda wax certificate insurance gebi ahaana ama waraaqadaha caymiska gebi ahaanba saaxiibayaal aanu lahayn daqiiqada kabacdi saaxiibayaal intay su'aaluhu socdeen ee lagu amriyay waraaqadaha looga baahan inay soo samaysato Nicola waxa ka muuqatay saaxiibayaal isdhaaf badan isku buuq badan soo kale kelmadaha ay ku hadlayso gebi ahaanba control ma ahayn mid kamid ah ciidanka booliska saaxiibayaal habeenkaasi roondada sameeynayay ayaa gebi ahaanba waxa uu ka shakiyay saaxiibayaal situationka ay gabadha ku sugan tahay daqiiqada kabacdina waxa uu soo qaatay tooshkiisa yar si uu baadho gaarigeyga oo si cad ah saaxiibayaal ciidan dawlad kaste oo waxa weeye sharci leh ay samayso hadaba saaxiibayaal habeenkaasi markii uu askarigu u soo dul istaagay gaariga ugu horeyntiiba waxa uu indhaha saaray uu gudaha ku arkay wax ka yaabiyay wuxuu arkay jawaano waaweyn saaxiibayaal oo baca madow ah waliba aad loo xirxiray oo gebi ahaanba saaxiibayaal isbiiska kuraasida dambe oo dhan qabsaday daqiiqada ka bacdi saaxiib markuu meesha u sii dhawaadeen wuxuu arkay in meeshan ur aad u badan ay ka soo urayso waliba urtaas saaxiib aan qof insaan u adkeysan karin dib ayuu soo laabtay saaxiib askariga booliskii daqiiqada ka bacdina askartii saaxiibadii la socotay u sheegay saaxiibayaal in ur aad u badan meeshan ay ka soo urayso gebi ahaanba urtaas aanay daraagis ahayn oo uu ka shakiyay urtani kabacdina saaxiibayaal waxay isku taraygareen inay baadhaan oo gaariga soo dejiyaan waxa gudaha u saaran oo runtii aad u cufnaa aad u weynaa sa muuqaalkan ama sawirkan saaxiibayaal iniga muuqda saaxiibayaal ugu dambeyntii boolisku waxay isku taraygareen inay furaan laakiin waxay adkeysan waayeen urtaasi kabacdina iyada ay weydiiyeen waxani waa maxay Nicola waxay ku jawaabtay saaxiibayaal oo ahayd gabadhii gaariga waday in gebi ahaanba saaxiibayaal waxaan u yahay dhar ertiya ama uskaga oo iyada soo qaatay maadaama gaarigani ku dhex nooshahay iyadii caruurteeduna xilligaasi kama dhex muuqan saaxiibayaal gudaha gaariga ee waxa ka muuqday Nicola iyo Bibi oo ahay saaxiibadeed oo iyadu saaxiib gebi ahaanba la socotay xilligaasi kabacdi ciidanku iyagoo isdhaafka faraha badan ee Nicola arkaya waxay ku amreen saaxiibayaal inay furto waxay isku taraygareen saaxiibayaal inay diido ama gebi ahaanba saaxiibayaal ay aqbal weydo inay waxaasi furto soo kale saaxiibayaal waxana cufnaantiisa ama miisaankiisu aad buu cuslaa ugu dambeyn saaxiibayaal waxa lagu amray inay furto oo waajib tahay inay furto si waxa weeye gabadhaasi ay uga baxdo yani situationka ama controlka markii hawshaasi la ogaado ka bacda ma la xaqiijiyo hadaba saaxiibayaal dacdadani xilliga ay socotay
nicole waxay ku hadlaysay markastaba erayo badan oo isdhaafa oo ay cabsi ka muuqato saw ma samaynayn ma rabin inaan sameeyo iyo qaar kaloo lamida saaxiibayaal iyo dhammaan erayo kalo gebiyahaantoodaba isdhaafa. haddaba saaxiibayaal markii ay ugu dambayn furtay ay waxoogaa wada waxay u sheegtay ciidanka inaanay sii wadi karin oo ay daashay dharkana yahay dhar dheertiya saaxiibayaal ama uskaga oo iyadu markasta iska wadato. haddaba saaxiib dhacdooyinkii ugu layaabka badnaa xilligaasi dhacayay mid ka mid a ciidanka ayaa wuxuu isku taraagareyay saaxiibayaal inuu isagu meesha furo halka kuwa kalena ay waardiinayeen bibi iyo nicole oo laba gabdhood madow saaxiibo ah oo mid ka mid a gaadhiga ay wadayey. daqiiqada kabacdeeda saaxiibayaal xilligaasi wax kasta jawigu caadi yahay gabadha lagu magacaabo nicola markasta isha waxay fiirinaysa waxa meesha kasoo bixi doonaa waxaana ogeed xaqiiqda meesha ku jirta. ugu dambayna saaxiibayaal waxa uu askarigii furay jawaankii weynaa ee meesha yaalay iyo bicihii madowga ahaa waxaana ku furay midiyaha yara qacmaha saaxiibayaal ee askartu isticmaalaan si ay u gooyaan waxyaabaha halista ah ay isleeyihiin baaritaankooga si uga baadhan daraagiska iyo waxyaababa lamid ah. haddaba daqiiqada kabacdi saaxiib urtu way sii siyaaday askarigiina hal mar waxa ku qayliyey oh my god oh my god oh my god erayo lamida waxaana daqiiqadahaasi nicola ay bilowday inay cararto. ugu dambayna saaxiibayaal askartii kale waxay caydhsadeen nicola sida muuqaalka iniga muuqataa waxaanay soo qabteen hal mar nicola oo qaylaysa saaxiib ay ku dhawaaqaysay ma raba in lay qabto ma raba in lay qabto ma raba in lay qabto. ugu dambayna askarigu saaxiib uu gariirayey wuxuu lahaa ilmo yar ayaa ku jira ilmo yar ayaa ku jira hawa ilmo yar. askartii saaxiibayaal hal mar waxa u daarmay fajac waxa u daarmay filin cabsiya urta meesha kasoo ureysay iyo ilmo yaroo googo-an oo meesha ku jira weliba saaxiibayaal xubnihiisu aad loo jirdilay weliba urtani saaxiib ay ahayd ur muddo badan meesha taalay siay askartu xilligaas u malaynayeen. ugu dambayna saaxiibayaal nicola iyo bibi waa la qabtay. bibi iyadu wax caqliyana kama haysan saaxiibayaal xilligaasi sida ay muujinaysay dareen ahaan waxa meesha ka socdaa laakiin nicola waxay ogeyd wax kastoo xaqiiqa oo gaadhigaasi iyo gudihiisa ku jira. saaxiibayaal daqiiqa kabacdi habeenkaasi ciidanka boolisku waxay amreen in ciidan kaloo boolisa ay yimaadaan saaxiibayaal si baadhitaan dheeraada loo sameeyo. ugu dambayna saaxiibayaal baadhitaankii labaad waxa laga soo saaray isla cunug labaad saaxiibayaal oo isaguna ku jira caaga kuwa ay soomaalidu barafka ku qaataan mid u eg saaxiibayaal muuqaalka iniga muuqda oo ilmaha labaad saaxiibayaal lagu xakameeyey. ciidanka habeenkaasi saaxiiba cabsi badan ayay dareemayeen qaar ka midana saaxiibayaal kantaroolkii ayaa ka tegey sidoo kalena qaar ka midana saaxiibayaal taraamo ama cabsi aad u badan ayaa gashay. ugu dambayn saaxiibayaal boolisku ugu dambayn waxay go'aansadeen inay geeyaan stationka ugu dhow bibi iyo nicola si baadhitaan loogu sameeyo intay boolisku baadhitaanadooda kale khaaska wataan. haddaba saaxiibayaal markii la keenay stationkii ugu dhowaa gabadha bibi iyo gabadha nicola waxaa la kala geeyey 2 qol oo gebi ahaanba kala saaran mid kastaba waxaa la geeyey askari saaxiibayaal si caadi ula jooga oo waardiinaya daqiiqadaha saaxiibayaal kiiskooga la baadhayo. haddaba saaxiibayaal isla waqtigaasi gabadha bibi lagu magacaabo waxay ku hadlaysa waan xanuunsanayaa waxaan dareemayaa xanuun badan waxa laygu soo xidhay dhammaan ereyada ku hadlaysana saaxiibayaal waxay ahaayeen kuwo isdhaafsan cabsi badan ay ka muuqato gebi ahaanba waxaana weydiinaysa mararka qaar sababta loo soo xidhay iskhalkhal badan iyo isku buuq badan ka yimiday xitaa mararka qaar waxay ku hadlaysay luuqad kale oo qalaad oon ahayn luuqadda ingiriiska oona gebi ahaanba ciidanka ama booliska la joogay saaxiibayaal aanay fahmaynin. halka nicola marka loola joogo dhankeyga ay khaaskayga u sheekeysanaysay saaxiibayaal iyadoo ereyadooda ka muuqdeen qoomamo fara badan oo ay lahayd booliska hortiisa miyaan ku furay booliska hortiisa miyaan ku sameeyey ugu dambayn maa la qabtay ugu dambayn way dhaceen waxyaaba saasi lamida saaxiibayaal. haddaba saaxiibayaal qisna waxay habeenkaasi socotaba ciidanku soo kale dhankooga waxay ka wateen saaxiibayaal baadhitaan soo kale askar badan waxay isku dayeen saaxiibayaal inay furaan laakiin waxay ku khasbanaadeen saaxiib in kamid a ciidanku in lagu amro inay furaan waxa kiishash ku jira kabacdina saaxiibayaal waxay kasoo saareen 2 meyd oo caruura da ahaana xilligaas iyagoo ku qiyaaseen 5 sano inta uu socday saaxiibayaal baadhitaankooga. habeenkaasi waxuu ahaa habeen dheer ugu dambayna saaxiibayaal su'aalo badan oo la weydiiyey nicola iyo soo kale bibi waxaa loo geeyey qaybta investigationka ugu dambayna waxa laga soo qaaday saaxiibayaal stationka xilligaasi ay ku jireen oo ahayd meel ku sii suga oo saaxiibayaal kuwa dambibaarayaashu saaxiibayaal ugu dambayn ay kusii sugayeen ugu dambayna waxaa loo qaaday meel investigation loogu sameeyo ama baaritaan buuxda. haddaba habeenkaasi saaxiibayaal nicola waxay caddaysay bibi in gebi ahaanba wax war aanay ka haynin waxa meesha ka dhacday keliya ay u soo raacday saaxiibadeeda maadaama saaxiibadeed nicola ay u socotay ay jirkeeda kasoo ganacsato oy u tegaysay nin bibina waxay sheegtay saaxiibayaal inay gaadhiga hore ugu soo kaxaysatay oo bibi dembigan gebi ahaanba waxba aanay kala socon. ugu dambayna saaxiibayaal bibi oo aad u cabsanaysa moraal ahaana xilligaasi la sheegay inay tahay qof
oo xanuunsanaya maskax ahaan. ugu dambeyntii saaxiibeel habeenkaasi bibi waxa lagu amray inay gurigeyga u laabato oo gurigeyga aado, laakiin Nicholas saaxiibeel habeenkaasi waxa lagu sii hayay gudaha meeshaasi lagu beeray investigationka. waxaan habeenkaasi mid saaxiibeel mid kamid ah kuwii investigationka ragga baadha kuwa ugu khibrada badan ama ugu experience-ga badan ee magaalada Baltimore. saaxiib daqiiqad ka bacdi saaxiibeel markuu Baltimore soo gaadhay waxa uu weydiiyey Mimi su'aalihii ugu horeysay. waxaan rabaa wax kasta u dhacay inay sheegto. laakiin saaxiibeel Nicholas habeenkaasi wax cadayna gabi ahaanba in afkeega ka muujiso way diiday. waxaan sheegaysay inay markaas isku taraganayso inay oydo laakiin aanay aboodin. waxay ka qoomaysay waxay samaysay, waxaana ku dhawaaqaysay erayo saaxiibeel u dhigan haan ka qoomaynaya. waxay ani qaladkayga ma rabin inay dhacaan laakiin way daryeeli waayeen. okay haddaba saaxiibeel mid kamid ah kuwii baadhayaashiiba habeenkaasi waxa ku dhahay Firi, waxaan doonayaa wax kasta inaad step by step u sheegto si sheekada loo soo ogaado saaxiibeel iyo wax kasta halkay kasoo bilaabmeen. haddaba saaxiibeel dib ayaan u laabanayna wax kasta iyo qisadan halkay kasoo bilaabmeen. haddaba saaxiibeel si aan qisada u wada faahno gabi ahaanteeda waxaan u laabanayna dib sanadii 2019 waxaa jirtay gabar ka timid magaalada Ohio oo la dhalatay gabadha lagu magacaabo Nicholas. waxaan dhashay Joshly iyo Larry. Joshly waxay ahayd gabadh da'deedu 7 sano jirto, Larryna wuxuu ahaa wiil da'diisu 5 sano jirto. markii ay timid magaalada Baltimore waxay walaasheed ka codsatay in caruurteedu u hayso. saaxiibeel markii gabi ahaanba ay ka weyday hooy ay ka degto magaalada Baltimore. haddaba saaxiibeel xilligaasi maadaama run ahaantii aad ay u dareemaysay caqabado badan gabadha lagu magacaabo Joshly oo caruurtani dhashay si kalena dhalatay gabadha Nicholas lagu magacaabo. ugu dambeyn saaxiibeel waxay ku heshiiyeen in Nicholas caruurtaasi hayso, Joshly nolosheeda hore u wadato, caruurteedana saaxiibayaal waxay taraysaa ay tarto. ugu dambeyn saaxiibayaal xilligaas wixii ka dambeysay gabadha Joshly waxay ku laabatay magaalooyinkoodii hore ay ku noolayd si ay nolosheeda hore ugu sii wadato. laakiin saaxiib Nicholas waxa soo fuulay responsibility ama mas'uuliyadda caruurtan yaryar gabi ahaanba. haddaba saaxiibayaal markii sanadada saa loo joogo qoraalo badan ay ku wada hadleen intii lagu jiray sanadadaasi 2019 ilaa laga soo gaaray 2020 saaxiib bishii March. ugu dambeyn Nicholas marar badan waxay la xidhay walaasha Joshly saaxiib gabi ahaanba inay u soo jawaabto ama dhammaan ka jawaabto koolasheeda. saaxiibeel way aqbali weyday ugu dambeyntii. haddaba saaxiibeel intii lagu jiray bishii March 2021 gabadha Nicholas saaxiibeel marar badan waxay la xidhay walaasha Joshly si ay mas'uuliyadda caruurteeda ugu soo laabato, weliba ugu qaadama maadaama culays badan dareemayso saaxiibayaal oo xilligaas shaqo ku filan aanay haysan, soo kalena saaxiib guryo aanay haysan ay ku noolaato, hotel ay u guurayso si ay magaalada ugu dhex wareegto saaxiibayaal maadaama noloshu aad ugu adkaatay. haddaba saaxiibeel gabadha Joshly gabi ahaanba wax xiriir lama soo sameeyay walaasheed Nicholas, waxaana ku diisay gabi ahaanba saaxiibeel mas'uuliyaddii caruurta yar ay kaga tagtay. saaxiibeel waxay taariikhdu iskurtaba Nicholas waxay sheegtay saaxiibeel in stress badan dareentay, soo kalena run ahaantii cadho aad u badan ay u cadhootay dhammaan faamilkooga oo aan gabi ahaanba kusoo xiriirinayn saaxiibayaal in ubadkan wax lagu caawiyo ama wax lagu soo taro xilliga gudaha sheekadani. haddaba Nicholas saaxiibeel waxay sheegtay maalmaha kamid in Joshly saa'id u garaacday, weliba garaac saa'ida. ugu dambeyntiina saaxiibeel ay banaanka u soo baxday si ay sigaar u cabto, laakiin saaxiibeel Joshly maalintaasi gabi ahaanba ay wax neef iyo dhaqaaqa joojisay. haddaba saaxiibeel askarigii baadhitaankan aan booliska ahaa ee investigationka waday ayaa gabi ahaanba waxa weydiiyey Nicholas waxa ay ku jiiday. waxayna sheegtay saaxiibeel inay saa'id u garaacday, weliba dhanka dhabarka ka garaacday iyo madaxa, soo kalena laabta ay aad uga tuntay. ugu dambeyn cadhada haysay madaxa dhulka ugu jiiday, waxaanay ku cataabaysaa xilligaasi gabadha Nicholas lagu magacaabo in sawirku aad u adkaa ama dhulka meesha ay la dhacaysay faloorka uu aad u adkaa saaxiibayaal. ugu dambeyn waxay sheegtay saaxiibayaal in gabi ahaanba wax nafa ay ka weyday. sheegtay Nicholas inay bush up garayso oo laabteeda xoog u riixdo ilaa ay naqas ka raadinayso. ugu dambeyn saaxiib Joshly oo da'deedu xilliga ahayd 7 sano oo ahayd gabadha yar ay dhashay walaasha Joshly halkaas ayay ku geeriyootay. haddaba saaxiibeel geeridii ka bacdi gabadha Nicholas ugu dambeyn cid may aweysiinin, soo kalena xilligaas waxa la joogay Larry oo da'diisu ahayd saaxiibeel 5 sano oo kaliya oo la dhashay gabadhii dhimatay ee Joshly. saaxiibeel waxay shaki soo socoto Nicholas waxay sheegtay habeenkaasi inay soo food saartay cabsitii ugu badnayd. ugu dambeyn waxay soo qaatay saaxiibeel mid kamid ah bacaha waaweyn ee khashinka lagu guro iyo bacooyin kale oo badan saaxiibayaal. ugu dambeyn meydka gabadha yar ee Charlene waxay ku riday saaxiibeel bacahaasi khashinka iyo baco kale oo badan, waxayna saaxiibeel ku ururisay waxyaabo badan oo dhar ah si dhiiggaasi uurtaasi uu qariyo, waxaana soo saartay gaadhigeega. soo kalena saaxiibeel waxay sheegtay intuu investigationku socday ama baadhitaanku habeenkaasi in gabadhani ay samaynaysay magaalada ku wareegaysay
haddaba saaxiibayaal xilliga Taylor la dilay Charlene waxa la sheegay in taariikhdu xilligaasi ahayd ama Nicole ay ku sheegtay 2021 bishii shanaad ama bishii May intii lagu jiray xilliga ay la xidhiidheen waxay ahayd bishii March oo ahayd isla bishaasi saddexaad saaxiibayaal hooyadeed haddaba saaxiibayaal xilligii Charlene dhimatay hal mar waxa la soo xidhiidhay hooyadeeda oo lagu magacaabo Dashley waxay la soo xidhiidhay gabadh lagu magacaabo Nicole oo walaasheed ahayd waxayna weydiisay xaalka carruurteeda ugu dambeyn saaxiibayaal waxay u sheegtay Nicole in xaalka carruurteedu aad u wanaagsan yahay ay fiican yihiin soo kalena saaxiibayaal waxay habeenkaasi u soo qortay Happy Mother's Day daba ahayd maalinta hooyooyinka adduunka waxayna weydiisatay saaxiibayaal lacag inay soo dirto ugu dambeyn Dashley waxay u sheegtay saaxiibayaal habeenkaasi inay u soo diri doonto lacag $50 gebi ahaanba waxaana maasajadaas ama qoraaladaas u soo raacishay Happy Mother's Day ugu dambeyn saaxiibayaal investigationka ayaa waxa uu soo saaray dhammaan qoraaladani intay socotay saaxiibayaal dacwada baaritaanka ay Nicole ka hadlaysay wixii dhacay kabacdi saaxiibayaal Nicole muddo ku dhow hal sano waxay meydka ku wadatay Charlene mid ka mid ah bacooyinka waaweyn waxaana saaxiib ku dhex daynaysay gaadhigayga xilli iskuulkoogu uu sheegay saaxiibayaal in gabadhani Charlene iyo walaalkeed Larry in muddo saaxiib oo ku dhow sanad gebi ahaanba ay maqan yihiin iskuulkooga maadaama waalidkaygu soo dacwoon saaxiibayaal ma jirin cid baaritaan buuxda ku samaysay carruurtan yaryar ee la waayay xilli ay ka maqnaayeen saaxiibayaal iskuulka ay dhiganayeen ee magaaladaasi haddaba saaxiibayaal qisadan qaybta hore waxaan kusoo sheegnay in Joyce dhimatay sanadii 2020 bishii May intii lagu jiray soo kalena saaxiibayaal sanadka bacdi iyadoo meydka ilmaha yari wadata oo baca badan iyo khashib badan saakan iga muuqata saaxiibayaal Nicole ku soo gurtay gebi ahaanba noloshiina istaajisay caadiga ahayd inay hooyada Dashley la xidhan gebi ahaanba joojisay ayaa saaxiibayaal waxay samaysay ugu dambeyntii gabadha lagu magacaabo Nicole inay jirdil aad u badan u geysato markasta walaalka Larry haddaba Larry saaxiib isla bishii shanaad 2021 hal sano ka bacdi walaash dhimashadiisa ayaa saaxiibayaal wuxuu ku geeriyooday gacanta Nicole mar kale ugu dambeyn saaxiibayaal Nicole waxay samaysay cadaawadda naas ay qabto sidii lamid waxay samaysay saaxiibayaal inay bacdihii ku rido oo labadii mid isku geyso gaadhigeegana ay ku wadato iyadoo gebi ahaanba saaxiibayaal isku dayin inay meel ku qariso haddaba saaxiibayaal maadaama 2021 xilligaas dilkaasi ay samaysay intii waraysiga lagu jiray investigationka waxaa la weydiiyey waxa ay ku jiiday waxaana sheegaysa investigationka ama baaritaanku intuu socday saaxiibayaal in ay la dhacday bir soo kalena jirkiisu uu dhiigayay waxaana ku celcelinaysay ur badan ayuu jirkiisu lahaa muddo badan ayaanu xanuunsanayay haddaba saaxiibayaal waxyaabaha kale la yaabka noqday intii qisadan socotay waxaa kamid ah in carruurtani da'dooda iyo miisaankoogu aanu islahayn oo miisaankoogu runtii aad u yaraa ilaa uu soo gaaray saaxiibayaal 20 kiilo oo kaliya miisaankoogu oo ay joogay bihaanba saaxiibayaal aan la mid ahayn haddaba saaxiibayaal intuu investigation ama waraysigu socday Nicole oo hin badan ayay markasta ooyeysay waxaanay canaanta saaraysa Dashley oo dhashay carruurtani oo iyadana ah walaasheed Nicole soo kalena iyo dhammaan waalidkeega oo saaxiibayaal sheegtay in bihaanba ay soo xiriirin waayeen inta ay dhibaatada dhexda kaga jirtay haddaba saaxiibayaal gabadha Nicole lagu magacaabo sidoo kale intii waraysiga ku jirtay ciidanka booliisku baaritaankooga wada waxay tageen mid kamid ah hoteelada ugu dambeysay ay deganeed waxaana ka soo heleen saaxiibayaal qalabyadii ay ku dishay ilmaha yar gebi ahaanba saaxiibayaal ay ku sheegeen biro iyo wax culus inay ku dishay gabadhii hore Charlene iyo sidoo kale wiilkii dambe ee Larry oo saaxiibayaal dhimashadooda muddo hal sano u dhaxaysay weliba meydkooga ay ku wadatay jawaanada waaweyn saaxiibayaal ee cabaysay iyadoo taas aan laga sheekin karin maadaama boqolaal homelesska Mareykanka saaxiibayaal ay jawaano waaweyn wataan saaxiibayaal oo gaariyashooda marka qaar ay ku dhex seexdaan oo cid ka sheekaysa gebi ahaanba aanu jirin waxay qisadu socotaba saaxiibayaal ugu dambeyntii baarayaashii waxay kale soo ogaadeen dhakhaatiirtii in carruurtan saaxiibayaal jirdil aad u badan loo geystay gebi ahaanba jirdilkaasoo muddo badan ku soo socday soo kalena xilliga ay dhimanayeen labadooduba xoog u gaajeysanaayeen xilli saaxiibayaal carruurta yari kiilooga loogu talagalay 20 uu ka badnaan lahaa caafimaadkooga iyo dadoosa isku yeelato haddaba saaxiibayaal baaritaanadii ka bacdi soo kale ciidanku waxay soo xoogaadeen oo la xiriireen Dashley si ay u sheegaan dhimashada carruurteeda soo kalena saaxiibayaal intuu dacwadani socotay investigationkani Nicole waxay kala sheegtay saaxiibayaal in ay Facebookga posti ku soo qortay postigaas oo ahaa postiyadii ugu dambeysay saaxiibayaal ay soo posti karayso Facebookga waxaana ku soo qortay postigaas saaxiibayaal dhacdo la yaab leh ama oraah la yaab leh oo ku leedahay wax kastoo adagood samayso wuxuu isku bedelaa waxa ugu wanaagsan eraya noocaasa mar dambe ma qomayn doontaan aniga ayaad macayga noqon doontaan oo ah aniga ayaad ila joogi doontaan markii ay dishay saaxiibayaal Charlene iyo Larry ka bacdi
dhimashadoodii iyadoo meydkooga wadata ay odhahdeen waxay kusoo faafisay saaxiibayaal barteeda facebooka. haddaba saaxiibayaal waxay dhacdo saas ahaataba qisadan cabsida badan gebi ahaanba waxay ku fiday magaalada Baltimore ee dalka Mareykanka. haddaba saaxiibayaal August 13, 2024 markii la soo gabagabay gebi ahaan baadhitaankii waxyaabihii ay qeyrtay saaxiibayaal gabadh lagu magacaabo Nicola oo naanis ahaan xilligaasi ninkii u haysatay waxa lagu soo eedeeyay first degree iyo second degree oo dambiyada qaybta koowaad iyo dambiyada qaybta labaad ayaa lagu soo eedeeyay saaxiibayaal oo ah child abuse iyo inay dishay saaxiibayaal dil u kasa kaasoo ku yimid saaxiibayaal garaacitaan iyo jibdil xoog u ba'an saaxiibayaal oo ku sameynaysa caruurta yar. ugu dambeyn saaxiibayaal 2025 February saaxiibayaal waxa lagu xukumay xukunkeygii ugu dambeysay. ugu dambeyn waxa lagu xukumay nolosheeda inay ku qaadato xabsi daayin waliba xabsiga dhexdiisa saaxiibayaal ay ku dhamaysato. soo kale Dashley oo ahayd caruurta dhashay hooyadani waxa la sheegay saaxiibayaal dhamaadka qisadani in ay haysato ilmo kale kabacdina goofan ay furatay si caruur ilmaheega iyadoo ku soo qortay saaxiibayaal xilligaasi in ilmaheega kale la caawiyo ee u nool. saaxiibsaalka niga muuqata waxaana ku soo qortay inay u baahan tahay in ilmaheega la koriyo ilaa $12,000 lacag ku dhowna ay u baahan tahay saaxiibayaal halka ugu badan ee cadadka lacagta ilmaheega ku korsan karto xilligaasi. ugu dambeyn saaxiibayaal maalmo kabacdi waxay ka saartay gebi ahaanba caawimaadii loo muujin lahaa xilli lagu eedeeyay in saaxiibayaal mas-uul darro iyo waxa weeye ka warhayn la'aan ubadkeegu ay dartood u geeriyoodeen. ugu dambeyn saaxiibayaal Nicola waxay noqotay xabsi daayin nolosheeda waxaana ku jirtaa mid ka mid ah xabsida Mareykanka xilligan qisadan daawanayso. haddaba saaxiibayaal Nicola kiiska ay geysatay iyo xukunka lagu xukumay saaxiibayaal ma isku qalmaan. haddii aad qisada kana la soo gaadhay saaxiibayaal ugu dambeyntii wax badan oo qisadan kamid ayaa soo fahantay. soo kalena saaxiibayaal qisadan cabsideeda iyo waxa soo fahantay waalidka caruurtiisa cid kale kaga tagay inay halis ugu jiraan in dhacdooyin xanuun badan caruurtaasi ay maraan. haddii aad ku cusub tahay markale saaxiib YouTube kanalkeena ku soo dhawow saaxiibayaal kanalkana subscribe soo dheh si aad qisooyinkan kale ula socoto.